raggan cabsida ah waa laba sarreeya guuto oo maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin wuxuu bedelay jenaraal odawa igaar harti abgaala gudahan u sii geli doonaa jufadiisa sidoo kale biixii waxaa bedelay sarreeya guuto axmed aadan waa igaar mareexaana harti abgaal ku bedel mareexaan ku bedel jufooyinkooda hoose dad badan aan garanaynin caawa barnaamijkan ku falanqayn doonaa saameyn intee leeg ayay ku yeelan doonaan dagaalka shabaab lagula jiro oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu horboodayo oo badi guul ku dhammaaday qaybta koowaad ee barnaamijka ayaan magacaabistaasi oo baraha bulshada gilgishay wax ku darsan doonaa aniguna waa soo dhaweeyey qaybta labaadna magacaabistan waxay ku soo beegantay xilli kulan xasaasi ah oo 5 saac socday oo laysku riiqmay oo u dhaxeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan oo la isku diiday wax la isku ogolaaday aakhirkii shirka muxuu ku soo dhamaaday qaybta koowaad aan ku lamaanin doonaaye garowe maxal dhii jiray heesta maxayd amni badantii garowe ahayd xaalkeedu waa low saanad 47 baa gurigii Deni Saakay madaxtooyadii Puntland gurigii Deni uu deganaa baa 47 kor loogu rido horta rasaasta garowe laga soo sheegayo mid cirka loo ridayo ma aanay mid guriga Deni lagu kor ridayo horta waayahay jidka soddonka ilaa xaafadda halgan nimankii Ciise Riyoole u xiran tahay taaka markii ugu horeysay baarlamaankii Puntland dadka warbaahintu ma sheegtee baa baskoolada la galay waliba xildhibaanadii la galay magacyadooda qaybta labaad ee barnaamijkan ka dhiga doonaaye baladweyne ninkii dabageed ahaa wuxuu isugu wacay odayaashii dhaqanka ee labeentii xawaadle wuxuu taagaya warkii hore intaad ka baxdaan labadan nin waa xawaadle waa cali madaxweyne waa maxamed cali isku yihiin labadan midna sharciidu hadda haystaa midna ma haystee xawaadlow shaqadiina qabsada ayaguna saaka way isku riiqmeen qodobkaasna waxbaan kala leeyahay hay dambeysay laba sarreeya guuto saad aragtaan sawiradooda cabsi ah waliba baa hadda dabka laga soo qaaday madaxweynihii baa xilkii ka qaaday biixii iyo odawa wuxuu ku bedelay jenaraal ibraahim sheekh muxudiin iyo jenaraal axmed aadan waaye balaan ku hormaro jenaraal horta odawa iyo biixii waxaan leeyahay dalkan shaqo fiican baa usoo qabateen waad qarankan waa u dhidideen dhiig baad u bixiseen wax badan baad ku weyseen khayr allah idin siiyo ducaa idinkugu darayaa waxna idin dhihi maayo labadanna ku soo hartay dad badan dood ka qaba jenaraal ibraahim sheekh muxudiin waxaan leeyahay horta xasan sheekh maxamuud rabtay laheed uu dhiga horta nin arti abgaala oo waliba warsangeli ah wallaahi billaahi bartaara baa la dhiga horta imaamadda harti abgaal ma haysan karo curadka waliba hadda warsangeli ma loo dhiibay dagaal haddaad maqasho horta inkastoo harti abgaal ciidanka lagu sheegayo iyo xoogga lagu sheegayo maanta haddii ciidanku qarax inta loo dhigo 50 askari meel marayso 35 waa harti abgaal waxaan qariyo ma hayo waa mudan yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka in loo magacaabo horta nimanka harti abgaal waa mudan yihiin waaya horana ayagaa u haystay maantana xayndaabka harti abgaal inuu dhaafin aad baa u soo dhaweynaya farxad bayd waaya haddaad maqli doontaa masaajidka cali guduud duurkiisa xataa in la galo duurka baadiyaha xataa shabaab loogu tago horta harti abgaal dowladdan waxaad moodaa oday bay ka yihiin ciise mudulood waa soo baashaaleen warsangeli madaxweynihii hirshabeelle weeye jenaraal maanta waa la siiyey agoon yar madaxweyne iyo horta laba jeer ay soo mareen waaba iskaga kaadkaadiyaan nimankaas waaba laandheere ciidankaana waa ayaga aad u jeedidii warsangeli kulli horta tawfiiq baa halkaas ku jirtay hadda agoon yarna madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo madaxweyne kay noqotaba cod iyo shacbaa loo socdaa ayagaa ugu duceeyey oo cimaamadaas kaga daba tuuray agoon yar weeye waxaa ii soo haray niman la yidhaha cabdalla caroone maanta waxaa la baadigoobayey waa saabey waa agaasimo guud oo canshuuraha waa taqaanaan beriga isagii ku-xigeenkiisa horta agaasimahaas guud idinkaa idinla jeclaan lahaa madaxweynahana fariintan waa gaaraysaa toosay u gaaraysaa ninkii waa dhuuntay hanti qaran buu booliiska Soomaaliya raadsanaya xafiiskiisa waa ka cararay masaajidka cali guduud oo qabtay ma Nairobi buu aaday waxbuu boobay waa cararay xisaab xilmale xasan sheekh la yimid booliiska asaas ku ursanay saas abgaal noqo habar gidir noqo xawaadla noqo ma jeertan noqo adeeg ku taal nimanka cabdalla caroonana horta halkaas lagu sharfayaa
hadday galmax ku qabsadaan galmax dhib male waa walaalahood adigu harti abgaal doobinaya arkaa waana istaahilaan waayahay ninkan aad aragtaanna igaarkan horta waa jenaraal muxudiin yani idinkaga tegina waa nin harti abgaala oo warsangelaya oo haddaad laandheero maqasho golay ah warsangeli dhan baa laandheero da-aya abuuta laandheero da-aya waa golay buu ka siiyaa maxaa ka taqaanaa warsangeli inta iiga xir sarreeyo guuto axmed aadan nin ka sahlan ma aha ninkan horta xasan sheekh labadaba xasan sheekh saaxiibo dhow ay leeyihiin ninkan weliba jenaraal ibraahim ninkan goley iyo ha ku fududaan ilaa corneel wuxuu ahaa siyaad bare sheekh shariifa jenaraal ka dhigay koofiye casta madaxtooyadu haystay igaarka abgaal waa kaas igaarkanna gacanta midig ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waaye waa nin mareexaana waa nin reer axmedoo buulo xaaba dega hadda waad u jeedaa baasha way isqabsatay horaa loo soconayaa weeye waaya magacaabistaanna waxaan aaminsanahay qorshaha xasan sheekh maxamuud inay ka miro dhalin karto taasaan anigu aaminsanahay waana u duceeyey raggaas ciddii ku dhegtana dee weligeeda xasan iyo dowladdiisa la iskaga dhignaayay hala yaabin ka fuqa intaasaan kaga gudbaayaa cabduqaadirna waa soo dhaweeya harti abgaalna cimaamadooda ma haysan karo waa wataa reerka niman yahow magacaabistan waxay ku soo beegantay xilli xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif xalay kulan xasaasiya oo inkastoo miran dhal uu ku soo dhammaaday laakiin odayaashu way isqabteen kulanka waxaa soo qabanqaabiyey ugaaskii daa'uud laandheerihii dhalay waa ugaas hawiye daa'uud iyo mudulood basma ma ahanba waaya ugaaskiyaa labadooda kala dhexdhexaadiyey ugaaska waa ugaas hawiye maqaamka uu joogana ugu wallahi waa ugaas hawiye madaxweynaha sheegtay xitaa dani aan ka daba hadli karin labadooda la isku keenay muddo kororsigii waxaan qaryo ma hayo falanqeyn badan baa gashay sidoo kale arrinta deni wax badan oo badan bareeshara la iska saaray shariif wuxuu yidhi deni anaa soo xarinaya madaxweyne adni isdabci denina anaa soo dabcinaya labadaas qodobaa ugu weynaa soo jeedinta xasan sheekh maxamuudna waxay ahayd shariifow soo dhawow cizi iyo karaamaa dalkan ku leedahay mustaqbal ifaya 100% ninkii ibedeli doona iyo ama kan dambe iyo kaan noqotidba dalkan future fiican baa ku leedahay soomaalina waa ku jecesha nihow maadaama oday soomaaliyeedna aad tahay inaan waxaan rabaa uu yidhi dalkii shabaabna waa ujeedaa gees buu naga qaniinayaa jufooyinkii waa seestaan odaynimadaada maanta lagama maarmo by the way waa qalinkuu ku duugay inuu la shaqeynayo shariifna hadda xajkiisu aaday wiiw berituu baxaya horta intaas waa update deni hooshiisana waa loo xir saaray qabiiladan wuxuu yidhi isdagaalaya odayaasha ka badan hadda anaa kula shaqeynaya ugaaska marka mudulood aad buu ugu mahadsan yahay laba nin ilaan shariifka aa u jeedo sheekh shariif mucaaradka laangaabka ahayoo dhan baa ku daba feelsan haddii ninkaa laga qabto mucaarad dambe ma jiro intaasna ku bishaaraysta xasan waa ku guulaysta hooshaas siyaasad dabacsan oo furfuran buu xala ula yimid odayga shariifna madaxweyne hore maqaam odaynimo laandheeranimo ayaa ka muuqatay odayaashaas mudulood waa isqaateen ciddii hartana ida u taal qodobkaas halkaasa kaga baxayaaye amni badantii garowe ahayd horta aan u duceyno garowe ilaahay inuusan dagaal ummadda soomaaliyed oo kusoo daashee inaanu meeshaas dhiig muslim ku daadan oo dhiig harti ku daadan ayaa ilaahay subxaana watacaala horta ka baryayaa saakay waxaan qarya ma hayo warbaahinta puntland cunaha la hayaa halkaana baa horta ni laga tabinaya warka saxda ah odagii deni ahaa horta caawa waxaan rabaa xisbiyadii habeen hore aado waad la socotaan in dastuurka lagu furo xisbiyadii asad diyaano jaranaalkii baa soo diiday ciisaryoole intay taagan yihiin qasamu bilaahan ku dhaartay nin ina adeer dhow la-aano magac ma sheego mamnuucay iga tahay deni oo gacanyaariyaashiisa ku jiro oo ina adeerkiisoo bah dhulbaanta ah baa wallaahi iigu dhaartay inuu horta deni dastuurka furay oo xilihii ka dhalaaqan meel iiga qorta nimankan marka ciise ruush ahaa waa ka war heleen in dastuurka maalmaha soo socda la furhayo horta qaabkiina bah lagu furay dastuur in la furo ceeb maaha laakiin inuu deni gacanta gudaha usii geliyaa horta la diidan yahay saakay 4 bay madaxtooyadii horta ku dhufteen korkeeda waay madaxtooyadii baarlamaanka ma aha deni korkiisa gow salaadii inta dukadu hurdo yar ku laabo maago qaca maarta naab oo gasho maage baa horta 4 kor loogu riday waa soo kacayaa haysta ciise ruush baa haysta ciise ruush ma haysta war magaalada macagsood war waa la soo qatalay waay ciise ruush saaka marka madaxtooyadiina biskoolada lala gal waa idin soo wadaaye dada isoo weydiiyeen nimankan awoodooda intee la eg tahay ciise ruushka
ilma adeerayaalow ma jeertaanku waa isku laandheerayaan waxbay isku sheegsheegaan laakiin anigu nin abgaalo waxay isla runta ka hadlaa wallahi inaan deni xasan shire abgaal kala jeclayn qasam billah ciise ruush ninkaa jimcaalaha wuxuu gacanta ku hayaa 700 ilaa 800 oo askari kow 80 tignikana waa haystaa 200 oo macawiisle lama waaye marka loogu daro waa 1 maleeshiyaad oo herta haystaan hubka culusna waa haystaan deni muxuu haystaa deni waa ku afar bijibaarmaa ciidanka jimcaale iyo aranjan haystaan laakiin kuwan dhaqaale aranjan dhaqaalihii Puntland dhan bay la garab joogaan horta waxay ku dhaarteen ayagana magac sheegi maaye booskow maalintii dastuur la furo war rabbul kacbaan ku dhaaranay madaxtooyada iyo baarlamaanka wala weynaya cirkay aadaya waliba hadda nin xildhibaan ah wuxuu soo qoray Ciise Riyoola xaruntan waayo xarunta baaba ay mushkiladda Puntland dhan looga arrimayo baaba eedi mushkiladeeda laga soo agaasimo sootan ma biyood macaan oo ummadda reer Puntland ku intifaacda baan u bedeli doonaa horta inaan dhulka la dhigaa biyo ka soo baxaya biyo Ciise Ruush waa dhaarsan yihiin marka halkaas maray saaki Puntland nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Jaabiri oo ataqaanaan oo Ciise Ruush awiya ma yaqaanaan raxweyntii jartaanka bisas la fahmaynaa oo Ciise Ruush ragaan aranjan ku xiran ah in la yiraahdo xaraf baa saaki laba baskoolad la soo gala baarlamaanka horta waraamnigiina yaa sugaya dheen meesha marxaladda faray ka baxday waxa yiraahdo waa 37 waan la galeynaa إيجار أحمد داعد ليرا أصلا حلبانا أو نمكن رير قرداء أو عثمان محمود أو بحر البهنتاء أو دني كل رير إسنا باسكولات بسوقات نمو البون نفتح النبي ومضى جرو كتاجن أمني بدن تي جرو وين حال كي دور تواكا ويا باسكولات دي والله قاضي مرحلة البرلمان كمير كي يقول البرلمان بدلانا أو باسكولات لسكوت دين لسوق جرو ويرت ويا بجرتن حرتيو دارو دو وعبد القادر بوسن كذا الله أرت النبض بعد اللي جعله سيد إذنك أنا شباب نبر برسنا يعني عم برسنا أرت شباب لجر مع عدو لما جرسنا نبض بنتلان بوح غالي أنا إيه أرت نبض بنتلان وحكي كده جنتاي نبض أمد الصوماليين إلهي بعدين كده والله أنا ما كانوا الدكان هنا والله وايدين دعية واي بنتلان نبض ده وحي كجرته هذا ما أنت عدى مرك حالة السانتاي إن دني ويرام حكي كده في دني ظلم يلقوا متها غيره دني ما حكي كده دستور لفوري ما يبودلان سيدي دور الله وضو هيستوري إنه وقتها لكن هدي حبط نعدو قسم بالله الدنيا مسؤولك مدحوين سجوا ولو بنتنا واحد قال لي سويدينو بوصاصة أنت وقدني وكنا مي ما أنت على وهلي علي عضي قف وضح وضدك الصومالية وأنا الكلمة دي هينو وإلو شدويهم بقى لكن بنتلان هدي دني سنة وقتها إذا حبط يعني وهلي هدي حل حبط نعدو وجروا الأسكوب بابو دنيا قاعدنا مسؤولية ده مد إلهي oo aakhirata la imid adduunyada taalo ilaahay leeyahay labadaba intaasaan in kaga gudbaya Puntland baladweyne hawaalla ka shariyareen wallahi ma jeerteen ka had nimay waxa jayte xalan ka hadlay xilki waa laga qaaday si sharaf badan uma hadlin gardarro waa looga qaaday waa sax niman tuuga oo isbahaysta xilka qaaday oo cali madaxweynaha warsan galiya horta wax badan oo intifaac airport male hirshabelle dekad male mataqaana laamiye male waxba male cali guudlaawe iyo dabageed horta aaba leedahay laakiin waxaan rabaa saaki dabageed horta intaas faantaan rabaa dabageed marka awaadla mid aan lay caawa laba eray xawaadla lay dhamaan u sheergaree horta dabageed saaka odayaashii buu isugu yeeray wuxuu yiri labadan cali madaxweyne adinka ka jeceshay idinka taqaanaan isku mid bay kii sharciyad haysta taageera odayaashii waxba ajandooyin badan laga hadlayay cali jayta xaaladiisa markay soo gaartay odayaashii waxba isla gurfiyay hadda kulan xawaadla gaar u ah waa inta ka sheegi maayo oo ku ixtiraamaya qodobadii la isla soo qaaday ku jirto horta waxa kale la xaqiijiyay oo madaxtooyada iyo xaqiijisay baladweyne in canshuuraha berito boolis meel kasta la geeyo doona baladweyne oo canshuurta ay dabageed qaadan doonay cali guudlaawe kow waxaas la rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxay noqotaba حوالو وحنا وريالتي وحنا ومتقانا وأوركعس يلا يرا هرتا على جيتي إنه هلية هي والصومال هلية وهي إلى هنا وأوجع نوجه قف أن كده جيسان علي جود لو أن كده جيسان دبجيد أن كده جيسان إلهي وأوجع وحرب مركا وحنا وأوركعس ومركل يقول لي هيران واحد هيران ليرا يوحد جدل ليرا ريالتي معها waxaa ku gowracan tihiin sida waara sheegay jawhar reer gadan waxay ku gowracayn kismaayo horta taas waa waaqici jira ma aha wax reality martaan hirshabeelle ayaa ku go'antiin horta
أما أدينك هجامي ومدحوين النقطة حتى مدحوين كحجين كنت الصدى حتى عاصمة قاطع إذا مدي الدنيا طل ولا لا تينا عدو شيء متينين قضب مية سياسيين تمركز دجالنا أوركاسي أديك سدان هيران استيد وأوركاسي تاس مال يقدي لكن علي جيت وحرب بينهم كسر جبيو علي جيت إسكابات نكبة حوادل كلمة دان مالك قرطة حوادل رك شباب اللي يراو إلى أمريكا كقيلي باق قضب كان حتى على هرت كينياتي كقيلي شباب واحد رمل لسا إثيوبيان كينياتي مريكان وأنمن إنترناشونال رجعيسا هرت بختي قواريستان مهران هرت نمن كاسي قضب كان حتى الله أو بابا إيه كديم بابا حوادل قواريج واسفي بين إلى عاي قضب ستالو قضب تمركا عدو هذا قضبها كجش صوما علي جيتنا أهين شباب كما ترترك كرو ما تقانا ماشي اللي هيران يهرشب يلا ننا علي جيتين أمها يعني مكرون كهلو هدي للربع حواد للدولة ده حنا وأوشي جاي أحمد معلف وزير كريمه جوده حواد إنه جول يستهدي للربع علي جيتي والله كمان مرمان واي أنت كلا وهل بعد ولس هذا كل شيء يعني يدبجيت كسر نكاس أضيق قرطاس هلا قلو هدي لسوء علي كري هدي نبض الوجود جوي كربا عن ص إذا هو الدولة ده أحمد معلم فقي وحبي يصبو جنور ويشهكو عبن ماشى وزير كريمه جوده ساكا علي جايته وحان أركان قبرده السياسات سند يبر علي جود لوي دبجت وهري والله وسن فدين نحود ما كدريه شبابنا حوالي إني حريريان مربنو وبلدويني هيرا إلى حريريان مربنو oo xawaada la xasuuqa marabno ninka ka celi karo Soomaali ay xawaada isku raacsiin waa Cali Jeyte aan inta sawirka isku soo xiray inta kale waa mala awaal iyo rag calooshood u shaqeystayaala madaxweyne ku xigeena war meeshu dekad male oo airport male oo laami male oo waxba male xawaada intaas ugu qaata wixii orkacsin meel iska dhiga reality kan Cali Jeyte waana idin wadanaa guuleysta bye bye